جالية الصوماليات كنا كان وطن هولن حفلتها سيئة طلقلين إنه كسر دويان رئيس الوزراء هنا عصب مدن حمزة عبد البر أو رئيس الوزراء دوان مقعابي أو دوان لقفل إنه صوم مقعاب حكومة ديس عصب واتهاي هذا الصومالي ده وطن هولن وحين لنا نصيب محايا وحين كملنا هاي وطن هذا أنت بدل مدحنا قرنك لو قبت حفلة سلويتها حفلتها أنه يكدوا أنت حفلتي هورا وحقيقي مقنعة قروح يونيبا وحيابك لو ديرانا وتعاون أقول بدونتان وأنا ذكر ما علينا سيدا قروح البدن ووصل قبل الشيء وقت جينا الناس يسال وعم جينا أنت حفلة سعوته إن أدريكنا كهل دونتان وحيابك على الدوام وأنا عاون يوصل بديك دون واتاي waxay joogta madax iyo mas'uuliyiin fara badan oo xafladda ka soo qayb gashay fanaaniin dhinacii saxaafadda wayna la joogaan oo warkiina iyo barnaamijyadiina caawa halkan ka dhacaya waxa dib ugu daawan doontaan telefishinada aynu leenahay haddii aynu nahay Soomaali waaga waxaynu furan doonaa xafladdeeni waxaynu ku bilaabaynaa waxa lagu furto waxa ugu qaarka badan waa ayadaha quraanka kariimka waxaan u yeerayaa شيخ إيكر ويسوي كمدا جالية الصومالية وطن هولن قال عن مقالة الحاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشيخ إيكر يقول ما سيهاي سورة القرآن الكريم كي نوصل جديد وهل كي نوافق هو عمر قات الله لكن يقول إسلام كان كنا قرآن إذا كانوا كم سكين سورة القرآن بدل القرآن كنا بسكتين كنتينا وواحد وباقيين وهذا وحين ورسي كني تونا برنامج كني عاوة مسؤولي من يدونا خطبته يعني كل بلاد تونا هي أسبابية حفلة اللوسم هي عاوة وحكي كني تونا نتأتي عشرة يوليبا فنانين يعني نوجد عبد البادل ويدو كمديين ويرو كلام يعني شكور فنانين كانوا قاعد فرضاً بايلوجي وعاوة وأنا في اليوم إني كاتب ترتونا لني عيش سوغانتا أنت حفلت سعودنا أنا جاي يسي دليل تونا تونا وفريقه وعن ويريا مركز وعن كفريا سيان أوغانو حفلتني يولي بقى قبقابة ده علي أوارق أو بالله يا بوتيكا قبقابة حفلتنا مركز هراء waxaan jecelahay shariikar inaan u mahad celiyo ayadii quraanka halka nooga akhriyay ilaahay ugu anfaco mudanayaal iyo marwooyin runtii
waxaan jecelahay inaan halkan uga mahad celiyo guddigii hawshan quruxda badan ee halkan aan u fadhino ee loogu dabaaldegaayo soo dhoweynta iyo hambalyada ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iska xilqaamay oo habeenno u soo jeeday. guddigaas runtii magacyadooda halkan laguma soo koobi karo, aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin, shaqo muhiimahay qabteen. sidoo kale waxaa xusid mudan dadkii Soomaaliyeed ee iyaguna ka qayb qaatay howl kastoo la qabanayo. dabcan loogama maarmo si loo dhiirigeliyo contribution dhaqaale in laga geysto. marka dadkii Soomaaliyeed ee isxilqaamay si guud oo community ah iyo si individual ah iyo si ururo ah iyaguna in la xusay mudan yihiin. walaalayaal aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. sidoo kale dadka ka soo qayb galay xafladda oo ah dadkan halkan fadhiyo quruxda badan, rag iyo dumar, dhalinyaro, waxgarad, culumo, wariyaal, muxuu ahay fanaaniinta qiimaha leh ee iyaguna waddan kale ka soo safray. dhammaantiin aad iyo aad ayaad idinkuna u mahadsantihiin, iyo intii kale ee iyaguna meesha joogayna suurtagelin in la xuso. sidoo kale waxaa si gaara iyaguna mudan in loo xuso wafdigii nooga yimid Biljamka uu hogaaminayo safiirka Yonis, iyaguna aad iyo aad u mahadsan yihiin. ugu dambayntii waxaan dhammaanteen isugu nimid oon halkan u joognaa waxay tahay inaan runtii u hambalyayno, soona dhoweyno ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo loo magacaabay prime ministerka waddankeena aan jecelnahay ee Soomaaliya. waxaan leenahay ra-iisul wasaare, hawshaan adigay gaar kuu tahay, soo dhowaaw mar kale. sawirkiisa waa inaad kor u qaadaan. dadka Soomaaliyeed ee Holland way ku soo dhoweynayaan, way kuu ducaynayaan, wayna kuu hanweyn yihiin. waxaan rajaynaynaa in adiga iyo madaxweynahaada iyo dowladdaada inaad si daacad ah dalka iyo dadkii diinta ugu shaqaysaan, kana shaqaysaan wixii ummadda Soomaaliyeed dan ugu jirto, horena aad u socotaan. waxaana rajaynaynaa in sanadaha soo socda aad noqotaan kuwa si dhow u wada shaqeeya, kana fogaada wax kasta oo keeni kara iska horimaad ama conflict. dadka Soomaalidu aad ayay u daalan yihiin, dowladnimay u baahan yihiin, nabaday u baahan yihiin, cadaaladay u baahan yihiin. waad u jeedaan sida Holland looga soo baxay iyo dhammaan waddamada kale, taasoo muujinaysa jacaylka dadka Soomaalidu ee weliba gaar ahaan qurba joogta ah, xiisahay jacaylka u qabaan waddankoodii, mar un inay ka hana qaado dowlad ka shaqaysa danaha dadka Soomaalida. waa howl adag. waxaan ku leenahay ra-iisul wasaare hambalyo, waa idin ducaynaynaa, soo dhowaada mar kale. aad iyo aad aad idinkuna u mahadsantihiin. Soomaaliya idinkuna waa mahadsantihiin. waagaag waxaan u joognaa xafladda quruxda badan oo lagu soo dhoweynayo ra-iisul wasaaraheena Soomaaliya mudane xamse cabdi barre. waxayna ka dhacaysaa holkan quruxda badan ee ku yaal magaalada Hague ee waddanka Holland. waa tahay waxaan iminka u yeerayaa Cabdulqaadir Nuune oo ah gudoomiye ku-xigeenka hay-adda IFSAN ee ah hay-adda Soomaalida waddankan Holland. Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha israacdo. walaalayaal waa mahadsantihiin. waxaan rabaa halkan inaan idinka salaamo anoo ku hadlaya magaca guddiga jaaliyadda Soomaalida dalladda ay ku midaysantahay IFSAN. sidaad arkayseen waxaa meeshan quruxda badan soo abaabulay qayb ka mid ah jaaliyadda dalladeenna. caawana nasiib wanaag waxaa noo fadhiya guddoomiyihii jaaliyadda Maxamed Askari. guddoomiyihii hore jaaliyaddana waa noo jooga Cali Awaare. marka hore waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre. hambalyadaas horta marka hore isagaa iska leh. waxaana leenahay ilaahay ha kuu guulaysiiyo dadaalka iyo isxilqaamka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sameeyey. waxaan rajaynaynaa dowlad wanaagsan inay ka dhalatay.
waxaan rajaynaynaa dowladda ummadda soomaaliyeed ay ku farxaan ay ku mataqaanaa ku barwaaqoobaan inuu ilaah ka dhigo waxaan rabaa inaan soomaalida u sheego walaalayaal waddan baan ka nimid soomaaliya na sugaysa dalladda IFSA waxay u taagan tahay inay ummadda soomaaliyeed ka haqabtirto wax allaale waxay u baahan yihiin dowladda Netherland iyo dowladaha Benelux waxay u tahay wakiil magaca Soomaaliyeed waxaan idinka codsanaynaa inaad mar labaad iga aqbashaan ambaliyada dalladda IFSA waxaan leenahay waxaa lagu midoobi karaa calanka Soomaaliya waxaa lagu midoobi karaa qarannimadana ay ku jirtaa calanka Soomaaliya waxaan dowladda Soomaaliyeed magaceeda ku matalaynaa dhammaan qof kastoo shaqti ah oo waddanka Holland degan waxaan muujinay dadaal waxaan leenahay dhaqaatiir waxaan leenahay xildhibaano iikir hadda waa fadhiya waana ku maasiyeen ka soo qayb galay waxaan noo fadhiya safiirkeennii walaalayaal sumcaddeenna ku dadaalaynaa waxaan ka qayb qaadanaynaa dowladda Soomaaliyeed inay horumar ka gaarto dhinac kasta nabadgelyada waxqabsiga iskaashiga waxaan u ballan qaadanaynaa haddaan dalladda IFSA nahay ama dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed Holland inaan la shaqeyno dowladda Soomaaliyeed ma isku raacno walaalayaal inaan la shaqeynayno dowladda Soomaaliyeed walaalayaal codkiina waa yaryahay ma isku raacdeen maxaa yeelay waxa lagu midoobi karaa waa qarannimada waa ummadda Soomaaliyeed markii safiirkeena la soo magacaabay boqorka waddanka Holland Willem Alexander wuxuu ka qaabilay warqadii aqoonsiga marka qarannimada iyo Soomaalinimada waa wax weyn Soomaaliya waa maasantii waagaag aad iyo aad buu u mahadsan yahay gudoomiye ku-xigeenka hay'adda IFSA runtiina Master Nune oo aad loo baraarujiyey waa tahay waxaan weli ku gudi jirnaa khudbooyinkii waxay noo soo socdaa sugaantii iyo cashadii dhowaan ayaanu geli doonaa dadku waxaan filayaa inay daali yihiin oo muddo ay fadhiyeen si aan xafladda usoo koobno runtiina aan miraheeda aan u helno ayaan waxaanu ku yeerayaa markan injineer Bashiir Xisi Maxamed inaa inala soo dhawaysanaya ku codsanayaan waxaan u mahadcelinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladdan dawooyinka iyo mudanayaasha dhammaantiin iyo safiirka Soomaaliya ee Belgium wafdiga hogaaminaya ee haweenka waddanka Belgiumka waxaynu isugu wada nimid oo aynu isku wada raacsanahay dhammaanteen taageerada xafladda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaan u malaynayaa waad yar aamusan tihiin waynu isku wada raacsanahay xafladda maanta aynu dabaaldegayna dhammaantiin codkiina hoos ku hooseeyaa way isku raacsannahay way ku faraxsantihiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya codkiina weli qaar baa hoos hooseeya codka ma maqlo aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaanu ku soo gabagabeynayaa waqti badan isagoo hore jirin oo ay dad badan ay sugayaan liistada ay ku jiraan rabaana inay khudbadooda ka dhiibtaan fariin yar oo raba inaan u diro ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay waxaan idinka rabnaa Soomaali midaysan oo isjecel oo iscafida ayaan idinka rabnaa sida ay Soomaalidu Holland ay u midaysan tahay hadda wada fadhida meeshan waan idinka rabnaa jamhuuriyadda Soomaaliya dadka ku noolaa iyagoo sidoo kale inay iyagoo midaysan ayaan idinka rabnaa waana hawl idin sugaysa inaad ka mid dhalisaan waxaan leeyahay garabkiinana Allah garo waan ku soo gabagabeynayaa Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha israacdo cadowgeedu ha jabo haddaan fantiin cadowgeedu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي خطبة فرق بدن أوجد وعن فليا ما دام هاول بدن أي جوجان حفلته إن إليهين وعلى سكوت الجيرتي هاول ليس جوج ميا ماشي. وقت هاي وحين صوت بنينا قبل بعض الدكتور بتيجا هاوينكا وأنا صالحه أسوي اللغة قالوا جالية وتكن هولن. وعليكم السلام يا سلامة المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هذا بدل ما أقانه عارو حكون فرحسنا إن الحفلة ده كسوق قالوا أنا أذكر قبل قرح بدن نمن قرح بدن ويلون قرح بدن آدي أنا أقول فرحسنا هاي مرك إلهي وحقق أكبر يا الدولة حسن الشيخ محمود يا حمزة عبد البر إلهي قرب
marka aniga waxaan kula dardaarmayaa madaxweynaha iyo prime ministerka in ay annaga qurbo joogta aniga ugu daranahay wax badan aan qurbo joogta aan joogno waa inay naga dhigaan qaran joogto waxaan ka wadaa inaan xamar u wada dhaqanno ee magaalada xamar waxaa ka dhigaan muxuu ahaa meel degan ilaahayna cadowga ha ka qabta halaasa hadalkay ku dhammayna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaaliya guul allaha na wada siiyo asalaamu calaykum aad u mahadsan tahay saalaxo runtiina dhinaca haweenku inagula hadlaysay waa runteed soomaalidu waxay ku maamahdaa dal aan dalkaaga ahayn dareenku joog waaye dhammaanteen waxaan u diyaar garooweynaa inaan wada noqono oo waddankeena iyo aynu dhisano waa tahay weli khudbadihii ayaan ku guda jirnaa iminkana waxaan u weecinaa dhinacii aqoon-yahanada waxaan u yeerayaa professor maxamuud cabdullaahi cali waxaan halkan hambalyo iyo uga dirayaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xamse cabdi barre hambalyo leh isla markaasna idinkama tegina dhammaantiin burayaal marwey wax halkaan isu yimid oo dhan وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كفر أحسنها أنت Soomaaliya oo halka isugu timid oo hal u jeedo wadata in Soomaali midowdo hal lahato aad baan ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol waxaan wax wanaagsan weeyaan idinkuna waa ku faraxsantihiin sida ila tahay inkastoo Soomaaliya waa ku farxaya ilaahay waxaan ka baryayaa oo ilaah ka baryayaa ra'iisul wasaaraha inuu waafajiyo يعني ماركين وناجم باقي وقبليه إيه بريسنتينا حسن الشيخ سلام مركزنا وهل كان لنا حكا عروس ولو موديبي في وساره إن لو ديبي وبدأ الصوماليين قاضي حكا صار الإلهي أفضل له كل سهله بدأ الصوماليين هي استوى العابين عابون النخبة عنت سكر إلهي مقدر لما أنت يوم لما ملك الشاشة ونقولك عنت سكر ولا بقولك وارع الله على جنبه بكل العيون نبت النخبة Soomaaliya han noolaato Soomaaliya ha israacdo han midowdo ummadda Soomaaliyeed ilaahay baan ku baryaynaa inuu qulubtooda isu dhumo oo ay walaalayeen waxaan ogahay wax cilmiyan ah laba goor baa Soomaalidu waxay tahay dad walaala mid history-ga sheegay haddii dad meel isugu yimaado oo isku soo isdhexgala hal qabiil soo baxaa gabigiisu ilaa wada si wada dhalay diinteeduna waxay qabtaa suuqan وأدوكي إن المسلمين إخوة واحتسبوا بحبل الله جميعا. كاسنا ولا على كلنا. مركب واحد ويلي أبتدي ويلي سيدي ربوا ولا على عطا سهولة سكان ضي بيننا. مركب واحد رجينا يا ما أنت النبي صلى الله عليه وسلم دولتنا لنا نتاكر. إن شاء الله سبحانه وتعالى ونقول الله الكريم. سوماليا هالنورات هاي سلام. أنت هاي سكبسكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنبلي وحكام الجيمينا adigoo noqonaysa dawlad waxtar ah oo dalka iyo dadkaba anfacda oo noo qabata dhalinyarada yaryar ee maanta qurbaha ku daalay aan waddankooda dib ugu soo celina annagoo hooyooyin Soomaaliyeed waxaan ku leenahay soo dhawow hambalyo iyo ducaan kuu hayna waa mahadsantihiin walaalayaal in aan soo dhaweyno xukuumaddeena cusub ra'iisul wasaaraheena waa arrin muqadas ah wuxuu la soo kulmay ra'iisul wasaaruhu waqti adag oo abaaro waddanku ka jiraan inagu haddaynu nahay gurba joogta waddanka joogtana inaynu adkayno xidhiidhka dowladda iyo dadkeena gurba joogta especially dadka Netherland jooga waana idin wada salaamayaa dhammaantiin insha Allah khayr badan iyo waxaan ka sugaynaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre xukuumad aan uga hambalyeeyno halkan oo tayo leh إن شاء الله السلام عليكم أدري ما صرتها ولا شيء سنة أنا كم سنتين سنة برضو بدن وايد فجيتين ما نقول بستين ولي يصير نجسنا وحين نقول بديه لأن عندما كانوا بدجنا وحن ويريا حبنا كهذا الدونا بديجا أودا يو شقلا دمر ها ويريا خطرة محمد قوت عليه يدقق إن إنسان استعجل مسكين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلامتك وكمان شرفت كسوقي والشيء حفلتها بدن. أنا بقول هلا مقعيقة مقعد كنت شغالة هوشان قررت سوق القلبين يو سيدا كله مقعد haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan awoodda dumarka Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay soo dhawaada koobaad marka labaad waxaan halkan iskugu nimid hambalyeynta ducada iyo soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha dowladda cusub ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre waxaan leenahay mudane ilaahay xilka ugu dhiibay ugu asturo sidoo kale waan kugu hambalyeynaa haddii aan haweenka Soomaaliyeed anaka waxaan rajo badan ka leenahay dowladdan hadda dhalatay waxaana rabnaa oo aan aad u hanqaltaageynaa inaan waddankeena ku soo laabano ubadkeena ku soo celino waxaan codsanaynaa in diiradda la saaro dhanka amniga oo aan markii aan waddanka imaano sida sanadyo badan ugu soo dhacday aysan ugu dhicin in aan tigid ka soo hormarsano waddankii cabsi ka jirta awgeed waa inaan waddankii ku nagaano haddii aan imaano haddii aan dumarka Soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyadda Holland waxaan codsanaynaa ugu horeeya waa amni waan ku duceynaynaa sidoo kale waxaan rabnaa ama aan uga soo talagalnay dhanka suugaanta baraambur duco ammaan iskugu jira oo aan ugu talagalnay ra'iisul wasaaraha waxaana baraamburkaas noo soo gudbin doonta walaashay ahna xubin ka tirsan awoodda Soomaalida Holland awoodda dumarka Soomaalida Holland deeqo ladan soo dhawaad aad u mahadsantahay walaashay waxaan marka hore salaamayaa ummadda Soomaaliyeed oo aan sanadna reer Mudug isxaal ognahay caawa juhdiga badan la bixiyay ayagana soo bixiyeen waxaan u mahadcelinayaa dadka qabanqaabada hawshaan lahay oo juhdiga badan bixiyay guddiga quruxda badnaay iyo shacabkeena kale oo soo garab istaagay oo hawsha dhinacooda ka geystay reer Mudug waa dhaqaaqdeen hore u socdaa idin leeyahay ra'iisul wasaaraha hambaliyo أولو بسم الله الرحمن الرحيم وقالت ذلك يوبق وابعين وقالت ذلك يوبق وابعين الله بلدك هنا برواق ويلاينا الله برواق يا كيم الكستو دقنا دولة بيرات ربي ومانين دولة نو بيرات ربي وبتبادين وكا حمسو حركات كيو حالدين عروس رئيس الوزراء حمسو حركات كيو حالدين عروس inaad wax ka heli doonta lagu xigsaday inaad wax ka heli doonta lagu xigsaday adii xasan xaakinkey weyd soo xushey adii xasan xaakinkey weyd soo xushey allow xagayo xagaba xaaladahan adkey وكان دردارني ودعو دلال بانده وغنا دردارني ودعو دلال بانده وغنا رئيس الوزراء نوهو دلال بلدونا يا
Somali isku duubano daali baan rabnaa qaraxa laga daayayo deersataan rabnaa dunida la midowdayo doora baan rabnaa shacabkoo idin dooranaya ku daagi laheen shacabkoo idin dooranaya ku daagi laheen ra'iisul wasaare inuu howlo xaalka ku samee waka xasanow gurmad baadeed qaadirkii ka yimid madaxweyne xasanow gurmad baadeed guulehey ka yimid dunidii gariibtay googtee codkii la guray dunidii gariibtay googtee codkii la guray sidaad ugu gacan sareysaa dadkii gudladay sidaad ugu gacan sareysaa dadkii gudladay ee xamsa haddaad garatay garabkaaga inuu yimaad gaashaanka oo dheegtay baa geelya aari la qanay gaashaanka oo dhiibtay baa geelya aari la qanay garashadaadii garaata lagu xiray waka aada وماسنتين لأنت الأمر ويمكن باتين نلاش إذا بدنا باتين وماسنتين واتهاي فريق مطلنا ما أنت كم حرّنا قبلي هي برامبركي وين مرقني دمركي نقول يا كسر حين وحيمسون تونا ذكي رجعني ولا بقبلي أما جروبي ما كان يسوق بديكو لكن وحصلنا وحكوا يا aynu idin soo gudbiyo markaan si qurux badan inay ula soo dhaweysaan soo dhaweyntii hore mid ka sii saraysa waxa weeyaan safiirkeena yunis yaasiin xaashi ayaan u wacayaan waxaan jeclaan lahaa inaan wada istaagno si qurux badan aan u soo dhaweyno soo dhawaaw safiir soo dhawaaw safiir soo dhawaaw بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده دمرك شرفت لك قبلها odayaasha dhalinyarada saxaafadda musashii iska iyo dhammaan inta marka sharafta adag ugu sugan waxaan idinku salaamayaa salaanta eebiyoon salaamullahi calaykum salaamta badeed ammaan iyo mahad ilaah baayo dhammaanteedu waan ognahay laakiin mahad gaar waxaan caawa u jeedinayaa dadkii kooxdii gabdhihii dhallinyaradii u istaagay meeshan quruxda badan xardhay oo inoo diyaariyey ee u horrayso ururka qiimaha leh efson iyo hoggaankeedaba sidoo kale dhammaan dadka ka shaqeeya waad ogtihiin junuucda caawan halkan isugu nim waxa weeye hambalyo soo dhaweyn iyo duco aan dhammaanteeda ku signo prime ministerka iyaga cusub ra-iisul wasaaraha iyaga cusub xamsa cabdi barre fadlan ila soo dhaweyn
waxaan u malaynayaa inaad og tihiin ra-iisul wasaare xamsa in la doortay uu yahay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka lana soo doortay 28 December 2021 kana yimid stateka Jubbaland taas waa ka dheregsanna prime ministerkayaga xamsa inuu noqdo ra-iisul wasaarihii 21aad oo branchiga ama hay-adda talada waddanka hogaamiya ra-iisul wasaare xamsa wuxuu kaga duwan yahay ra-iisul wasaarayaashii inuu idin xamsa wuxuu ogaa in marun markay doonto ilaahay ka dhigeen in waddankaas uu qayb ka qaadanayo dhismihiisa levelkay noqoto ha ahaatee ama heerkay doonto ha ahaatee wuxuu ahaa la taliye heerar badan laakiin waxaan ku xasuusan karaa xamsa inuu ku yimid urur la yidhaahdo UPD taa macnaheedu waxaa weeye siyaasad ahaan diyaar bay u ahaayeen xamsa inuu siyaasad ahaan diyaarku u ahaa waddankaas inuu qayb ka noqdo hoggaankiisa taan insha allah ilaahay ma seegin taa macnaheedu waxaa weeye dhammaan ra-iisul wasaarihii ka horreeyey isaga ama ra-iisul wasaarayaashii ka horreeyey independentiga ahaayeen dad iyaga iskoo u socday marka insha allah halkan aan maaragtay hal daqiiqa ha ahaatee faatixada aan u marno duco ahaan taas intaas baan leenahay in ilaahay ku ilaaliyo jagada cusub oo aadka u dhib badan oo ay la-aantiin uusan wadi karin hal arrin oo muhiima baa jirta oo ah annagoo dhan waxaan maanta caawa u dhigi waxay nagu jirta fikrad wanaagsan oo waddan jaceyl iyo dad jaceyl ah taa hadday ay nagu jirin inta ma imaadeen intayna badan anna taa waa idinla qabaa laakiin maamaada soomaaliga ahayd ee af waa kalmaydhinka amin iyana waa jirtaa ee la socda taasoo ah hadal badan dan baa dhaanta macnaha waxaa nalaga baahan yahay madaxweynahayna mudane xasan sheekh maxamuud waatuu iclaamiye oo ahayd waqtigan xaadirka ah waxaa ahmiyad gaara inoo ah abaaraha ra-iisul wasaare xamse cabdibarran talada isna waa noo soo jeediyo abaaraha number 1 inoo ah insha allah taasaan ku dadaalaynaa ummadaha kale caalamka ku dhowr waxaanu kaga duwannahay annaga diaspora iyaga xoog leh mid human capital ah iyo mid tiraba taa macnaheedu waxaa wey waa samayn karnaa wixii looga baahdo waxaana loogu horreeya abaaraha haddaan yara milicsado intii ka hadashay guddoomiye waaran ugu horreeyo waad ogtiina ahmiyadda wuxuu saaray midnimo waxaa ku xiga cabdulqaadir nuune islaan midnimada iyo wadajirka iyo isgarabtaagga dowladda ilaahay meelaas siiye midnimo maanta wanaaggeeda meel laguma sheegi karo soomaaliya diasporaheeda inay u baxsato baa la doonayaa haddana waxaa la sameeyey diasporaha inay hoos tagto wasaaradda arrimaha dibadda marka ahmiyad gaar diasporaha u leedahay soomaaliya waqtigan xaadirka ah sidoo kale gabdhaha markaan u soo noqdo profesor maxamedna waa weynay maxamed cabdullaahi cali isagu wuxuu ku nuxnuxsaday waddanka sugahaan jira waa runtiisoo soomaaliya waddan qurux badanoo liberal oo aad u degan u ahaan jiray waxaa ku garaadsaday waa anoo yar lambar 4 qofkii yaqaanaa yaqaan oo iskuul ka soo baxay private ah siduu waddanka qiimo u lahaa wiil yar oo nin ajnabiya ka qaatay joornaalkiisa oo ninka ajnabiga joornaalka akrinayo sarkaal meel fadhiyo dharcada ka soo istaagan oo markuu ku dhigo joornaalka u arkay joornaalka wiilka u celi adigana fadlan waddanka si fiican u joog taa hadda ma jirto waddan wuxuu ahaa is-ilaaliya isla socda wanaagna ku dhahay
midda kale waxaan xasuustaa oo aan ku soo gaaray aniga qofkii dhibban ama gaari ha ka jabo ama meel maaragta ha istaagnaado maaragta meeshaasi halkan ha ku galo in loo gurmado maantana waxaan ognahay wixii ay dadku sidaa u gin jireen afka hoose la geli jireen in maanta kor loo qaado ilaahay waxaan ka baryaynaa in dulinimada ilaahay naga qaado aan dowladdeena garab galo midnimo muujino ragga gabdhaha salaaxo iyo basra saynab iyo qadri iyo deeqo allaha sharaftooda dhowreen intay gubaabadaasi iyo midnimadaasi ka hadlayeen iyo sharaftay u hayaan prime ministerka iyo gobadiisii madaxweyneheenna iyana waxaad dareemi karaan dareen midnimo ah iyo wanaag anigu hadda waxaan ku soo gabagabaynayaa anoo magaca madaxweynaha ku hadlaya caawa midnimo keliya waa wax u qabsan karaa dad is haysta dad isla jaanqaada alxamdulilah farxad weyn bay ii tahay markaan soo gaaro meeshaan Netherlands ama Holland markaan imaado runtii waxaan dareemaa farxad oo aan ahayn meelaan ka qalooda ama meelaan dib uga noqo sababtoo ah relatively waa dhaantaa inta kale oo soo arkay hadalkaygii ahaa hadal badan dhanbaa dhaanta Soomaaliya waxay rabtaa inay u baxsato diasporeedii dibadda joogay idina waxaa rabtaan inaad wareejisaan talada iyada ah dadka gudaha jooga ku wareejisaan aad tirahdaan alla ilaahay ha kiciyo waxa qabteen marka waxaana laga maarmay oo number 1 marka tooda laga soo tago ama tiinaba ay tahay midda koowaad inaad doorkiina ilaahay idin tuso sababtoo ah ilaahay intaan ku dhacday oo Soomaaliya nooga dhacday waa nagu arkaa laakiin waxaan lagu bedelay mujtamac aad u tiro badan oo Soomaali ah oo dibadda ku nool oo awoodna u leh mid dhaqaale iyo mid aqooneed inay waddankooda u taraan keliya aan la'nahay midnimo marka insha allah waan idinka fadhiyaa taa iyada ah hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa anigu hadda meesha aan mas-uulka ka ahay waa Benelux Belgium Netherlands Luxembourg iyo European Unionka sharaf baan community kala kula joogaa waxa ay ka hadlaan qeyb baan ka ahay laakiin sharaf waxaan ku leeyahay marka bulshaweyntii Soomaaliyeed quruxdooda iyo midnimadooda aan mar walba arko ama aan dareemo haddaan mid midacsado muhiim ah caawigeeda wadaagay waxa weeye Soomaaliya dowladdeedii rayidka ahayd iyo dowladdii militariga ahaydba sharafta Soomaaliya kor bay u hin jiray dadka naga aqoon yaraa marka annagu hadda iska hadlayna runtii waxay lahaayeen moral ground oo aad u adkaa waxay dhiseen hanti fara badan bay Yurub ka dhex dhiseen Brussels oo ah xaruntii Yurub waxay ka dhiseen hanti oo aydan malayn karin hantidaa waxaa iska leh Soomaaliya waxaan uga tegaynaa jiilka dambe ee soo socotay iyaga looga tegay laakiin hantidii waa dayacan tahay dadka qaarkiisu waxaa jira dhowr jeer inaan sheegay reer Holland la socda in lagu soo socda ay iman doona haddii ilaahay idmo in meesha iyada ah hantida iyada loo badbaadiyo generationka soo socda sababtoo ah safaaradii alxamdulilah anaa imid wixii aan qaban kara waa qabtaa gacan nabada gashay waxay naga maqan mid kaloo weyn guri weynaaday oo 1 acre lagu qiyaasay inuu yahay gurigaasi hadda mar alla markaan arkay inaan tago oo aan cabirayo oo qiimeynayo deegaanka dadka joogay iyo munishiibkii ku dheganay iyo kii gobolkaba intoo maalinku way soo wacaan gurigu haddaa iibinaysaan innagaa xaq u leh hantidaasi waxay ku taallaa prime locations Soomaaliya iskale safiirka ma laha safiirka wuxuu la joogaa muddo yar calankii Soomaaliya wataa magacii Soomaaliya ku hadlaa suu hadal waxa weye waxaa danta Soomaaliya ku jirta marka insha allah taa inaad la socotaan idinku soo wajahanay
dardaarankii u dambeeyaan caawa idinka tegayna waxaa waaye midnimo oo ay sharaftiina ku jirto midnimo oo qof walba oo idinka damba idinku tayan doona haddii ilaahay midnimo oo aad dowladda idinku gacan qabanaysaan way sugaysaa waana miyahan weyahay salaamullaahi calaykum Somalia wala sitiin sitiin oo baadinayna Yaasiin Yunus Yaasiin Cashir oo runtii si weyn loo baraarujiyey nala dareensiiyey Soomaalinimadii iyo weliba wadaniyadii wuxuuna caawa uga hadlay sidii madaxweynaheena oo kale aad ugu baahsan yahay iminka waxaan ku yeerayaa Cabdiqaadir Nuure gudoomiye ku-xigeenka hay'adda IFSA sidoo aad iyo aad ugu mahadsantihiin saad la socotaan waxaan caawa rabnaa inaan u hambaliyno ra-iisul wasaareheenna xamse cabdi barre sidaad la socotaan waan dhex xiriirnay wuxuu naga codsaday maadaama caawa la rabo in ugu dhawaaqo dowladdii in madaxtooyada maanta soomaaliya ay aad iskugu tahay ilaa 30 xildhibaan la soo wacay waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda inuu firaaqo noo helo mujaaliyadda hodan iyo benil islaam waxaan rabaa xafladda quruxda badan ee aan waqtiga gelinay waxay ku timid sabab ah in soomaalida hodan degan iyo benilux inay dad midaysan waxaa jira guddi aan u magacaabnay qabanqaabada guddigaasoo caawa waxaad aragteen quruxdan diyaarinteedii sameeyey annagana aan ku faraxsan haddaan nahay maamulka guud ee IFSA safiirkeena inaga joogo waxaan u yeerayaa xuseen khadiib iyo libaan waa inay halkaas soo istaagaan walaalayaal sacabka lagu taageera maxaa yeelay xuseen khadiib wuxuu ahaa guddoomiyihii hore ee IFSA ee ka horreeyey saaxiibkeen cali awaale sidaa daraaddeed weli wuxuu u taagan yahay inuu soomaalinimada u shaqeeyo waqtigiisu geliyey liibaan waa nin dhalinyaro ah isagana dadaalsaday waxaa ka dambeeya guddi shaqo ah isaga kusoo wareejinaya isagaa noo sheegi doona waxaan ka codsanaynaa inaad sacabka ku taageertaan soomaaliya ha noolaato أنا واسنتهاي مستر نورمان أبي ونكسن مدني على مروي وعاوة هذه هذا مفرح سنة هاي يقدر قاطع عدي هو دائما أنا يقوم لكن برؤية مركعته أو بأروح حياة وتالي هذا واسنتي هنا عزيمة على جيتين وقتني نتالي وحيرنا كاتلو عملنا هنا أصله وشيء من الناس يعني حفلة تنبع وسكر حفلة روحه بدله وحيرس ولدي قبله وأنا معاون إني أعمل كذا شيء يسوي استعجال وقلتي شغالة أو هرمود وياي ولكن علي وعليه براي فورنو داغو قدرو إنجنير فيصل إلى ما نزلت شغالة وحنا نسرع إلى الستيج في مدينة ما مش مسكوت جاي وحقاتي هذه قيمة بدل إن أمة الصومالية وهم كلهم عندما نعاود بعضينا رئيس الوزراء مولانا حمزة عبد البر هون هذا اللي إن إلهي لك رب كلام أسير يقول لي سعسوك وعلينا يا حمالي إلهي هذه فرضايا مسؤولية علوس باقادين sida aad u jeedaan waxaa gadaasheeda soo istaagay wiilalkii gabdho qurux badan oo ah dadkii habeenkii maalin ila taagnahay oo quruxda caawa laga muuqata ka soo shaqeeyay marka waxaan ka codsanayaa halmar inaad iigu sacbisaan oo aad garansiiseen hawsha adag ay noo marteen waxaa kaloo rabaa caawa in aan nin aad iyo aad qaali loogu ah haddii aan nahay jaaliyadda soomaaliyeed oo aan ogahay in oo ilaa iyo muddo badan ugu yaraan
8 sano u taagnahay horumarinta ummadda Soomaaliyeed isku keenista aruurinta nin la yiraahdo Cali Waare waxaan rabnaa in aan caawa xoogaa aan u madaxweyneyno oo aan nahno aad iyo aad u mahadsan tahay fikirkan aqligan quruxda badanne waxaa ka soo jeediyay maskaxdeena liibaan oo aad iyo aad ugu dadaalay in gudoomiyeen oo Cali Waare aan nahno waa mahadsan tahay Cali waxay hore noo soo istaag mudan safiir waxaan rabnaa in qaali ah oo aad iyo aad loogu soo shaqeeyay oo aan ognahay culaysaa u dhiibanay 8 sano noo dulqaatay weligii ma amaanin laakiin caawa bilaabayna marka waxaan rabaa caawa aniga ugu faa'iidaysanaya fursaddan qaaliga ah mudan safiir in awlaadka Cali noo gudubsiiso haddii yarta ah oo aan rabno wax walba ku fiicnaba inuu soo xasuusto cabdi cali waare waxaa ugu hambalyeeyaa laftay kan safiir ahaan inaad bulshadii maanta aad kula noleen Den Haag Netherlands dhammaantood qirayaan hawshii bulshada iyo kaalintii bulshada kaga jirtay ilaahay waxaan kaaga baryayaa khayrkaa mid la mid ah sunnada waxaa ugu muhiimsan dadka babdiga u shaqeeya si hufan ugu gashta hawshooda taasa sunnada tan ugu fiican ay tahay marka caliyow walaalo waxaan maanta ku gudoonsiinayaa guntigii intay kuu garteen xuseen iyo tiinkiisa nuune imaan iyo dhammaantood inta kale gabdhaha ay noloshooda walaalo waxaan ku gudoonsiinayaa arrintan وعاوز ربي علي ولي أوصل لما قالوا إنه دخان عاوز أنا قلت ميكروفون كذا وعقرب كذي تاجت نين ولا كنا أو أسيق أنا من هذا ما نتوقع سومالي دهون جوتين الله بلاه ولكن محمد عسكري وجميع مسؤول جالي سومالي دهون ونين هذا أفضل ونين هذا علينا من لكن عاوز قال محمد هل كان سوسك ومدة الدنيا وتاي أكو برتاني. وسلامتي وعلى نقول مسؤولين كامر الجعلة بكسر كملا هل كان الدنيا كنا هي علي وكان نقول من جاي سيدا من حوينا على عدل من حوينا من حوينا يا شو جاي أيونا كان نقول يا دنيا أنا مالين يعني أنا هرتيسي هوسيسي أكلي حتى سابنا لوري وحنجري إن شاء الله من نشيسي كل كلمة يوردون ذلك إن شاء الله إلا كم inkastoo runtii meelo badan aad ka hadasho waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in hadalka meeli weyso walahi runtii waxaan isleeyahay dadka Soomaalidu waa dad wanaagsan runtii muddo ayaan anigu kulay dadkan nolol sida gudoomiye Xuseen uu ii sheegay ayaan mujtamaca Soomaalida hormooda ka soo shaqeeyey waxay dalada waxay joogeen kuwe oo ka mid ah asaasiyaasha Xuseen Khadiib oo soo noqday gudoomiyaha dalada iyo dad kale oo sharaf leh oo ayagu runtii ka mid ahaa waxay joogeen Maxamed Askari oo runtii asaga laftigiisu mar hore u soo noqday gudoomiyaha dalada haddana marka walaalayaal anigu waxaan kusoo kooba
inaanu noqono dad wanaagsan oo isku duuban oo isku dulqaata lama helo adduunyada mujtamac dhammiya dadka Soomaaliyeed dad wax walba wadaaga marka taasaan xagisano walaalyaal Xuseen iyo tiimkiisa iyo safiirka aad iyo aad u mahadsantihiin Soomaaliya hal noolaato walaalyaalow safiiryonis waxaa u dhow jeer noo sheegay in hanti Soomaaliyeed oo annagoo dhan aan leenahay waddanka Belgium oo ah guriga safaaradda Soomaaliyeed oo aad u burbursan yahay dadkii dariska ahayd ay soo dacwoodeen oo leeyihiin maadaama meel qaali ah oo qurux badan uu ku yaallo walaalyaalow haddii aadan dhisan karinaha geedaha ka jara nadaafiya meel hagaagsan ka dhiga dad Soomaaliyeed oo horu tagaa jira oo ay ka mid yihiin communitiga Bareeda Cabdooday isxilqaamay walaalyaalow safiirku waa laga xishooday dhowr jeer arrintaas waa lagu celceliyay ma maqalnaa foolxumada gurigaas waa annaga foolxumadeena cawada waa wada joognaa waxaana la ka rabaa haddii aan nahay mujtamaca Soomaaliyeed ee waddanka Holland degan in dad odayaal ah waa joogaan akhyaar ah oo dalladda ay hogaaminayso inay tagaan la soo fiiriyo la soo qiimeeyo kadibna wixii aan ka geysan karna aan ka geysan korneel Cabdullaahi aan ujeedaa xaaji muuse aan ujeedaa adeerkay waxaa joogaa janaac Cabdullaahi Daxaaq lama soo koobi karo odayaasha dhowaan joogaan gabdhihii sharafta ahay kulligii waxaa laydinka rabaa qof walbi oo isxilqaamo in la taga meeshaas la soo qiimeeyo waxba nagama dhibayso anigu waxaan jecelahay maamaayaha Soomaalida waxaa layidhi intii nin dhibto lamama dhibto abaayasalaado oo ka tirsanay wasaaradda arrimaha dibadda waa joogtaa aktiifa lama soo koobi karo walaalyaalow arrintaas waxaan idinka codsana dhammaanteen inaan iska xilqaano walaalkeed safiirka marar badan lagu celiyey inaan arrintaas ibsan iyada baladii ah guddigeedii hore madaxdeedii hore guddi cusbeed waa nala joogaan la hogaamiya arrintaa guddi u saara mar dambe safiirku arrintaas uu nagala hadli waa maadsantihiin Xuseen هذا هو ما تنقل ولكن يعني أنا أستاذ وحواي هذا كون لك وعن تجني يعني الصومالي الأمريكي اسمها كوريا سفارة أو سبين أيضا مركز الإعلام دولة هوسة بروسل يكون لكنتها وحان الشحن قارني ومسميني مشين كذنو إن كوريا سيتي عن بدلينو أو جدي إعلامي يصور عن كذا لكن واحد قف يوم قفيان يقول لي هاي ما هذا إسكاشنا لكن وحوين كما كنا علم وحوي واحد هاي إن شركة لو كريم بيرها الشركة جديد وين وحفظنا الإسماء اللي هي جديد جاب واحد أحد الجيران قال لي عمر وين شقراء وكسر الجيران البنات وأوكرنا وحوي واحد هاي أنا كو كعمار السبسر لك كل جالسين كل بلداني فيها لواء wuxuu u baahan yahay arrin isxilqaan oo dadka degan Benelux dhammaan ay ku taagaan Hollandna ay hoggaan u noqoto insha Allah tacaala maasanidii annaga eebsan aniga mas-uula guddi aan leenahay howlaha ku saabsan jaaliyadda ayagaa noo qaamo kenan wax alla wixii ku saabsan safaaradda Soomaaliya ayagaa ugu fadhinaa inay guddi noogu saaraan kadibna annagana aan la qabano haddii aan ummadda Soomaaliya nahay waa maasantii وعند أصحاب التيجي إن ولكن على هدية سلوك الرماية إن أصحاب سلوك كوتان حسوس هذه أمر وما أستدي إن أسكبنا عليه وعاوز يوتينا سبيل بين سبيل ما هو حنا وحاول يبدل العلوم في سال الكرم طبعا لقى الدنيا ذا بتبني الكتاب طلعان كدرتين وطنو متوسمين
meel ku taame allahan ku dharte hurdano ma toosne ka tashada cadawo isku tiirsanaada ka tashada cadawo isku tiirsanaada isku tiirsanaada isku tiirsanaada أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنتاس كبعدي أنت إنها يساعد أعطيك كلمة قبل يرى سوق عمي حياكم بالعافية. marka hore wataanay gurnaay magaca Soomaaliya maskaxdeena oo kulantay waa lagama marmayo miisaanina yeelana way macaan tahay magacoojiyo waa loonahay maanta say tahay midigtays bashana wahayna midna marka xiga marleyo marley talado marley maquuran dadkeniyo dadkan lagaba marley inkastoo maanaba kale waynu soo muday martibaa ku joognaaye meelaha kale magacoojiyo waan ognahay maanta say tahay midigtaysta shaka wahaya midigtiis qabsada gacmahaas qabsada marka xiga magacabaynu waa saarama ka sheegay murtidiyo xusuustulada yaadinin muday oo taariikhahan soo mara nagama waqtigayna soo maaqaba inaan macashahay magacoojiyo waan ognagay maanta say tahay midigtaysta shaka إلهي كتابك فرقان إلهي كتابك فرقان كان يوم أباك لك والكل والكريم كونك يوم مخلوق وعلى
Thank you.